waxaa lagu tilmaamaa waddanka ugu da'da Afrika sababtoo ah dalka Koonfurta Suudaan waxaa la aasaasay 10 sano kahor. 9kii Juulaay sanadkii 2011 Koonfurta Suudaan ayaa xorriyad qaatay oo ka go'ay Suudaan. Kumanaan sano ayay ku qaadatay inay halkaa gaaraan dadka dalkaasi, iyadoo ay hareeyeen dagaallo sokeeye, dhimasho iyo burbur. Markii Koonfurta ay u codeeyeen inay ka go'aan waqooyiga, waxay rajo aad u badan ka qabeen inay dal cusub oo hodan ay noqdaan, isla markaana ay heleen awood lagu gaaro horumar aan la soo koobi karin. Xilligii uu socday halgankii gobonimo doonka ee Koonfurta Suudaan, carruurtu waxay ka mid ahaayeen dadkii ay sida aadka u saameysay dagaallo 23 sano qaatay. Kumanaan kun oo wiilal ah, da'dooduna ay ka yar tahay 7 sano, ayaa ka mid noqday ciidanka safka hore kaga jira dagaalka. Boqolaal qof ayaa ku dhintay dagaalka, boqolaal kalena waxay u dhinteen gaajo, abaar iyo cudurro. In ka badan 20 kun oo carruur oo Suudaan ayaa masaafo dheer ku dhex lugeeyay ilaa Itoobiya ilaa Kenya si ay uga gudbiyaan waxyeellada dagaalka. Sidoo kale, qaar badan oo ka mid ah carruurtaasi waxay waalidiintooda ku waayeen dagaalada. Mid ka mid ah carruurta ay sida tooska u saameeyeen colaadaha wuxuu ahaa fanaanka caanka ah ee Emmanuel Jal. 7 jir ayaan askari ku noqday. Dagaalkii labaad ee sokeeye ee Suudaan wuxuu bilaabmay 1983 wuxuuna dhammaaday 2005. Wiilal badan ayaa iskuulada ama waalidiintooda laga kaxeeyay iyagoo aad u yar, waxaana loo diray jiidaha hore ee dagaalka. Jal wuxuu ka mid ahaa wiilashaasi. Dagaalkii wuxuu bilaabmay isagoo 3 jir ah. Markii uu 7 jir ahna waxaa qabtay jabhadihii oo tababar ayaa loo diray. Ma go'aansanin inaan noqonayo askari, waxaana loo sheegay inaan iskuul u aadayno dalka Itoobiya. Waxaana loo kaxeeyay Itoobiya. Markii aan halkaa tagnay, waxaana loo tababaray ciidan ahaan iyadoo la adeegsanayo qori. Sidaa ayuu yiri Jal. Tababarka wuxuu ahaa mid adag. Jal wuxuu sharaxayaa maalmihii hore in ay garaaceen tababarayaashooda iyagoo aan xitaa samaynin wax qalad ah. Xilli hore ayaa la toosiyay waxayna bilaabeen orod. Waxaan aragnay carruur loo dilay sababo la xiriir inaysan raacin tilmaamaha, mana jirin cid ka naxday. Taas ayaa naga dhigtay dhammaanteen inaan u hoggaansanno awaamirta. Jal wuxuu adkaystay shaqooyinkii adkaa ee tababarka si uu u barto sida loo adeegsado qoriga, loogana argutay kuwii dilay eheladiisa. Hooyadiis waxaa lagu dilay dagaalka ka hor intaanay qaban jabhadaha. Waxaan cabay kaadi si aan nafteeda uga badbaadiyo dhimashada. Markuu 13 jir ahaa, Jal wuxuu ka mid ahaa jabhada ka ag dhaweyd magaalada Juba. Carruur badan oo askarta ka tirsaneed ayaa ka tagay ciidanka iyagoo ujeedkoodu ahaa inay qoyskooda iyo eheladooda ka badbaadiyaan dhibaatada. Wuxuu soo raacay ilaa 200 oo asxaabtiisa ah, waxayna go'aansadeen inay dib u laaban oo ay qaadaan waddadii ay mareen wiilashii kale ee iyaga ka horreeyay, kuwaasoo aaday Itoobiya dagaalka si ay uga cararaan. Bilihii aan sida xayawaanka u noolaa ma ahayn mid sahlan. Cunto iyo biyo la'aan. Safarku wuxuu ahaa sida isku day dil. Dadka qaar waxay ku dhinteen jidka, wax cunto ah ma haysan, biyo haba sheegin. Kaadideena baan cabi jirnay. Sidaas ayuu yiri Jal. Jal wuxuu sheegayaa in qaar ka mid ah ay gaareen heer ay cunaan hilibka asxaabtooda dhintay, wuxuuna ku dhawaaday inuu cuno hilibka aadanaha. Xitaa aniga waxaan doonayay inaan cuno dadka, laakiin Ilaahay ayaa iga badbaadiyay kadib markii aan shimbir soo muuqatay aanu dilay kadibna aan cunay. Haddii kale waxaan cuni lahaa saaxiibkay. Markii ay kumanaan kiiloomitir lugeeyeen, waxay gaareen xerada qaxootiga Kakuma ee dalka Kenya. Jal wuxuu nasiib u yeeshay in diyaarad lagu geeyo Nairobi. Carruurtii oo la socotay oo ka badneed ilaa 200 qof, 16 qof oo keliya ayaa timid xerada qaxootiga. 10 sano kadib, madax bannaanida ma gaarsiisay rajadii iyo riyadii ay lahaayeen. Xornimada waxay qaateen 11 sano kahor, balse dhalinyaradaasi ma gaareen hadafkii ay ka lahaayeen madax bannaanida. Jal markii uu ka tagay Kenya wuxuu u wareegay dalka Canada. In badan oo iyaga ka mid ah waxaa ka go'an inay ku noqdaan dalkooda ay gacan ka geystaan waxqabadka iyo horumarka qarankooda curdinka ah. Qaar ka mid ah kuwii dibadaha ku noolaa sida Jal ayaa soo noqday iyagoo xamaasadaysan kadib xornimada. Waxaa sidoo kale dib u noqday qaxooti badan oo kala yimid meelo kala duwan sida Kenya iyo Uganda. Markii uu qarxay dagaalkii 2013, waxa uu sababay inay dib ugu noqdaan dibadaha. Kuwa aan soo laabanna ay ka tanaasulaan qorshahoodii ahaa inay dib ugu laabtaan dalkooda. Jal wuxuu ku laabtay Canada dagaalka kadib, laakiin wuxuu qorsheynayaa inuu ku laabto Kenya. Waxaan halkan kusoo gabagabeynayaa mowduucani ku saabsanaa Jal. Haddii aad tahay markuu horeysay aad soo booqatay kanaalkeena xogta Samir Cadde Media, fadlan subscribe noo saar, like iyo share. Waad mahadsan tahay.